guddiga fulinta xiriirka Soomaalida kubadda cagta ayaa tan iyo bilowgii sanadkan 2020 dadaal iyo waqti ku bixiyay howlaha ka socda tuulada ciyaaraha Stadium Muqdisho waxaana gudoomiye ku-xigeenka xiriirka Soomaalida kubadda cagta Cabdullaahi Sheekh Nuur Axmed uu sheegay inay ku faraxsan yihiin shaqada adag ee laga qabtay gegida Stadium Muqdisho tan iyo markii ay la wareegtay dowladda Soomaaliya. waxaa farxad inuu amaanta in aan goobjoog ka noqono ama aan dhex taaganahay Stadium Muqdisho oo 30 sano ka hor ay noogu dambeysay in wax soo saarkiisii iyo waxqabadkiisii iyo activity ka dhici jiray oo ku qarsoona meeshaasi noqotayna meel baaba'san laakiin alxamdulillah maanta markii dawladdii iyo xiriirkii iyo macluumaadkii tashi badan hadal badan iyo talooyin badan ay go'aano ku qaateen in meeshaasi dib loo soo celiyo laguna soo wareejiyo footballkii ku shaqada lahaa waa wax aad iyo aad u qurux badan qof kasta oo Soomaaliya maanta wuxuu dareemi karayaa in meeshaasi ay tahay meel shaqadii iyo waqtigii loo baahnaa iyo shaqadii maanta ay taagantay alxamdulillah markay u yartay maanta waxaa idin muuqata bilicdii iyo muuqaalkii waxaa keeni kara marka amniga la helo dadkiisa ayaa keeni karta marka amni haduusan jirin cidna isuma imaan lahayn taasi marka wax ilaah mahadi ah ilaah baa lagu mahadi celinaya insha Allah. Zaki Axmed Carab oo ka mid ah falanqayaasha ciyaaraha gudaha ayaa sheegay in xiriirka oo kaashanaya madaxda dowladda ay wax wanaagsan ka qabteen garoonka Stadium Muqdisho. Sports ugu weyn xamar ee Stadium Muqdisho man hadii la furay oo qof walba uu jecel yahay inuu soo fiiriyo ka mas'uuliyad ahaan ama xiriirka badca ahaa ama xiriirka sports gobolka ahaa ama shaqaalaha xiriirka ahaa waa ugu qasab inaan soo fiirisid soo booqatid marka talaabadaas booqashada waa talaabo fiican oo muujinaysa hamiga iyo rajada laga leeyahay garoonka. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xiriirka Soomaalida kubadda cagta Cabdullaahi Sheekh Nuur Axmed ayaa intaa ku daray hadalkiisa in 10kii sano la soo dhaafay xiriirka uu ku dadaalayay in la helo soo celinta garoonkan balse iminka uu qorsheynayo in lagu qabto ciyaaraha gudaha iyo dibadda tanina ay qayb ka qaadanayso guulaha kubadda cagta wadanka. ilaa 10 sano ku dhawaad xiriirka Soomaalida kubadda cagta inta wuxuu daba socday si gacanta xiriirka lagu soo celin lahaa ama gacanta sportiga guud ahaan lagu soo celin lahaa marka runtii dadaalka badan la galay waxaa ka soo baxay marin dhalkiisa maanta ayaan taaganahay haddii ayna dawladda garab siin ama dhinaceeda ay ka socon ama hawshan ay horseed ayna ka noqon maasha Allah waxaan leenahay ma noqon lahayn mid maanta xiriirka gacanta ku soo dhigo marka dawladda macal wasaaradda iskaashaday ayaa waxay suurto gelisay dadaalkii badan ay sameeyeen iyo caqliga iyo fikirka ay soo jeediyeen xiriirka Soomaalida kubadda cagta ayaa waxay suurto gelisay maanta inaan haysano goobta ku haboon wixii dalka gudihiisa dibadiisa loogu iman lahaa laguna soo bandhigi lahaa footballkii guud ahaan. Kolkii aad booqato garoonka Stadium Muqdisho waxaad dareemaysaa in si wanaagsan ay dowladda uga shaqeysay tan iyo markii ay iskaga baxeen ciidamada Amisom 27kii Agost 2011 waxaana 3 sano la soo dhaafay dowladda iyo madaxda ciyaaraha looga mahad celiyay dadaalka isbeddelka muuqda ay ku sameeyeen garoonka ugu weyn Soomaaliya ee Stadium Muqdisho. wada shaqeynta dhanka maaragtay sportska ee dawladda iyo sportska in galangal aad u fiican dhankaas oo ka soo muuqanayo oo waxaad u maleysaa in kaalmo aad u muhiim ah booqashada nimankan waxay jaanis aad u fiican ay siinaysaa maaragtay bahda sportska oo waxay dareemayaan in laga warhayo sportski dalka oo maaragtay hadana booqashada garoonkan inkastoo qof walba maanta inuu garoonkan booqdo ay muhiimad gaar ah asiga u tahay hadana waa dhiirigelin dhanka maaragtay sportska ah. Abuukar Islo oo ka mid ah guddiga fulinta xiriirka Soomaalida kubadda cagta muddo badan ku soo ciyaaray garoonkan ayaa isagana sheegay in helitaanka garoonkan uu wax badan ka tari doono qaranka iyo kooxaha kubadda cagta maadaama ay ku ciyaarayaan gurigooda tanina ay soo dhaweynayaan bahda kubadda cagta maadaama si wanaagsan loo diyaariyay qaybta kubadda cagta tuulada Stadium Muqdisho. Garoomada tababarka banaanka lagu sameeyay hadii la helo iyo hotelkii la helo xogaa waxaa isleeyahay ciyaarihii kubadda cagta Soomaaliya inay dib u soo noqonayso ayaan rajaynaynaa. hawshan waxaa bilowday wasiiraddeena Khadiija Maxamed Diiriye waa qof howlkar ah isku taxaluujisay hawshan inay qabato. isbedelada dawladda ay ku sameysay garoonka Stadium Muqdisho waxaa ka mahad celiyay bahda ciyaaraha waxaana dad badan ay u arkaan inay wax badan ka tari doonto guulaha qaranka ee la rajeynayo ciyaaraha dibadda in lagu qabto halkan. Talaabadan falanqayaasha ciyaaraha waxay u arkaan mid horumar ah maadaama Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay ay kobac fiican ka sameysay ciyaaraha qaaradda Afrika. Maxamed Xuseen Khaliile, Stadium Muqdisho.